Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa Xakiim Official, Xakiim Yare Official. Fadlan haddaa ku cusubtaa subscribe saar share dheh si asxaabta daafaheeda dunida daafaheeda kala joogtay u gaartaan. Mowduuca idin wada caawa maxay kuleeto waa garanaysaan maalmahan arbushaad fara badan baa adduunka taagan. Sidaan hore uga soo hadla xalay mashquulku waa iska badan yahay, dilku waa iska badan yahay, laakiin gaal marka la dilo waxaa u malaysaa ummadda dhan inay u wada kacayso u danqanays aysan ahayn qof islaama markii la dilo inaan loo danqanayn. kuleeto ilaah baa garanaya xaal siduu yahay adduunkan. Kuleeto waa adduun aakhir zamaanka la dhahay waxyaabo badan baa la arkaa. Kuleeto calaamadihii bay ka mid tahay u malaynayaa. ma idin dhahay yacni barnaamijkan unbaa xaalkadeed ku celcelinaa, laakiin waa maxay waxa ka jira caalamka aragtidaada fadlan haddaa nala wadaag commentiga noogu reeb. ma ahan xumaato ra'yi ahaan. kuleeto qof walba fikrad buu leeyahay, qaab bay wax ula muuqdaan, qaab wax u arkaa. maku dheheen yacni qasab waaye inaa anaga saa u aragno aad ugu qanacdid kuma dheheen, laakiin adi saa u aragtid nala wadaag. adi naftarkaada fikradda waa nala wadaagi kartaa. maxaa jira waxaa u malaynayaa maalmahan arbushaad fara badan dhanka inay ka taaginta iyo Minneapolis, taas oo ay keentay dilka dhacay oo la dilay nin madow ah, taasoo cadankii iyo madow cunsuriyad ahaan hadda u muuqdaan inay isku dagaalayaan oo waxyaa madowga uu biliiliqaysanayo waxyaabo fara badan. laakiin adduunku maxaa ka dhaco maalin walba dad masaakiin oo islaam ah ayaa la dilaa, cidna kama hadasho mana ka jawaabto, jawaabna ka bixiso. daad maxaa ugu wacan qof gaal markii la dilo insaan dhan xamaasad loo kiciyo, qof islaamana maalin walba dad diyaarada lagu duqeynayo oo agoon ah, caruur, dumar ayaa jira. cid ka danqata ma leh. waxaan arkaya sacuudiga ayaa dhakhtar jooga camal inuu ka hadlayo uu dhahay dhibkaba waxaa keenay soomaalida tagta xagga madowga ah oo Minneapolis. kuleet waa islaam, ma dhihi karo yacni gaal waaye, laakiin waddanku joogo boqolkiiba boqol islaam waaye, laakiin bini aadan waaye wuxuu hoos ka yahay ma hubno. laakiin asiga wuxuu caddeeyey beedkiisa soo dhigay twitterka inay tahay dhibka waxa meesha geeyey Soomaali. ma ogi sacuudigii wuxuu uu ku neceb yahay Soomaali iyo cadaawadda kala dhexeysa, taasna ma sheegi karo sababtoo ah waxaa u malaysaa imaaraadka iyo sacuudiga saa'id in u necbiin dhanka Soomaaliya. ma ogi taasna waxaa keeni kara ma garanayo, laakiin qaab siyaasan ama qaab maldahan weye oo islaamka loo burburinayo, taas oo mar walba loo adeegsado wadamada carabta ah oo dhibka ugu horeeya wadan walbo la burburinaya carabta unbaa loosoo hormariyaa oo loo adeegsadaa si ayaga culays u saaraan, xiriirka u jaraan. kadib ayaa waxaa kusoo daba dhunto shisheeye ama caddan ama gaaladii, laakiin marka hore islaamka ayaa islaam lagu aadiyaa siisa isku dareemin oo la isku dhaho wadamadan ayaga islaam isku ah oo isdagaalaya, laakiin siyaasad ahaan ayaa hoos waxa uga maldahan dad kale kuwaasoo ah wadamo shisheeye sida Mareykanka, Ingiriiska. kuleet waxa adduunka hadda boqolkiiba boqol la dhahayo talada ama maamulka ay hayaan waa yuhuud, waana wadan yar, taas oo isku dayayaan mar walba inay kontaroolaan caalamka oo dhan. caalamka marka yuhuudiya adeegsadaan waa Mareykan iyo Ingiriis. Mareykan iyo Ingiriis waxaa malaynayaa adduunka markii la dhaho wadamo badan oo ka kaadinaya ayaa jira, taasna ugu wacan tahay cabsi ku beeran ayaga ama lagu beeray oo dad badan oo islaamaha la laayaa. sida xalay hore idinkugu tusay sawiro dad masaakiin oo Falastiina oo jilbaha qoorta laga saaro oo si qaab dar u dhintay. marka ma aha inaan u doodno hal gaal dhib uu sameeyey. gaalkan qaladka uu ku dhacay one person waa, laakiin billions ayaa maalin walba ku dhimato ama lagu silac dilaa wadamada islaamka sida haba u badnaata Falastiin. waxaa u malaynayaa Falastiin gumeysiga lagu hayo waxay u muuqataa 60 sano. waxaa u malaynayaa wiilkii dhashay ayaa duqoobay, iska daa maanta wadamo hadda dhow la weeraree. laakiin ra'yi ahaan islaamka muxuu isku fahmi layahay maxay tahay carqaladda dhex taalo oo ay mar walba iskugu adeegsanaya dhexdooda. waa arkaysaa hadda dhanka Soomaaliya kaleeto maanta qaraxya ka dhacay dad badan ku dhamaadeen. lama dhihi karo islaamkii yacni wuxuu sameynayaa waxyaabo aad maskaxdaada markaa fiirisid ama aad fikirtid macquul ahayn, taas oo ay ugu wacan tahay in ay tahay in ayaga dhexdooda laisku soo adeegsaday dad masaakiin oo islaam inaad disho diintee kuu banaynayso. intee ugu qoranta kitaabka qur-aanka, intee xadiis maa ku aragtay, sunno xataa war xadiis yar oo daciif xataa miyaa jirto qof islaama dhiiggiis kuu banaynayso? waa maya. ra'yi ahaan tusaale ahaan waa maya.
marka sidee ku awooddo inaad disho walaalkaada muslimka oo garabkaaga baahan inaad gumaado aad maalin ilaahay keeno dhib la daba joogto horta dhibka ummadda islaamka ilaaha ka saaro ilaahu baryaanaa ilaahu rabbi raxmaano ganaasa dhibkan kuleeto dhibka jiro ilaah baa og meeshuu ka jiro laakiin waa ummadda nabi maxamed waxaa la halaagi maayo laakiin ayaga gacmahooda isku halaagayaan taasna waxay u muuqataa inay hadda taagan tahay oo qofka islaamka ah islaamkii kale uu dilayo gaalkii daba uu gadaal ka soo diray taasna ma dhihi karno yacni islaamnimo waaye laakiin qofka bili-aadanka qalad wuu galo war ilaah u tooba keena war istakfiruleysta war walaalka inay dishqumbanaan walaalkaada muslimka caawiyaan u dhaa diinta islaamka naxariis waa diin degan waa diin ammaan ah waa diin nabadgelyo ma ahan diin dagaal ma aha dad shisheeye ah lacag inta ku siiyaan inay kugu isticmaalaan si qaab daran walaalkeygiiyo islaamka aho waa ku baryaa ul islaamnimadaada ha ku dheelin sharafta islaamkana hoosa u dhigin nin wanaagsan ilaahay kaa dhigay diin islaama ilaahay kugu dhex dhaliyo ma aha inaad xumeyso inaad dadkaadi xumeyso dadkaadii disho dadka waxaan leeyahayna soomaaliya badanaa waxay u maleysaa ama idaacadaha soomaaliya maalmahan inay buubuuninayaan waxaas sida u dhahayeen maanta oo kaleeto ingiriiska ayaa banaanbaxay ka dhacay oo madow iyo cadaan ah waxyaabahaasa buubuuni walaalkaada islaamka dhibka soo gaaray tus caalamka ma aana gaal baktiyo qashinoo gaal kala dilay ma aha inaad buubuunisid walaalkaada islaamka ayaa kaaga baahan garab caawi asi buubuuni adduunka tus in laga gardaranya in si xaqdaraa loo dilay ma aana inaad gaalna u hiilisid walaalkaa markii la dilayna ay shib dhahdo oo gadaal martid ma aha fadlan wixii akhbaar ah commenti noo reeb tusaale ra'yi ahaan fikradaada wixii tahay halkaan ha daawanaysaan waa Xakiim Yare official fadlan haddaa ku cusub tahay subscribe haddaa hore u joogtay soo dhawaaw waan ku soo dhaweynaynaa familkeyga baa ka mid tahay mar walba waan ku jeclahay dabcan sidoo kale adigana igu caawi share inaad dhahdo si codkan uu gaaro ama ra'yigaada uu gaaro adduunka daafiisa share ii dheh please waan ku mahadsantahay thank you so much salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu